xildhibaan Faysal Kartuush anigu naanistaada hadda taydii ka gabatay taada waan cadeynaya bahda waxbarashada maamulka iyo macallimiinta dugsiga Casuura Siciid Jaamac Shoodhe Xandulle dhammaan odayaasha kale macallimiinta waxa weeye salaanta islaamka ayaan idinku salaamayaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu maanta ay bishu tahay bishii shanaad 28keedii waxaynu joognaa deegaankii Casuura oo ah deegaan aad iyo aad ilaahay quruxu siiyey waqti waliba ay barwaaqo tahay aanu nasiib u yeelanay inaanu soo booqanno iyadoo ay tahay deegaan aad iyo aad ilaahay qurux ugu manaystay dooxooyin kale rugan leh oo haddii alaba kuriye hurgufato xadhaadh Casuuro oo la yiri ilaa 250 qoys baa ku jira oo ku nool waxa weeye waxaanu halkan markaa maanta u nimi inaanu dugsiyadii iyo fasalladii ka hirgalay Casuura inaanu soo booqanno kuwii dambena inaanu xadhiga ka jarro ayaanu maanta halkan isugu nimi horta marka ugu horeysa waxaan idin sheegayaa waa laga soo sheekeeyey fasalkii ugu horreeyey iyo barkadaasu siday u dhismeen Saleebaan Xaashi Carab ayaa dhowr jeer igu soo noqnoqday waxaan ku yiri war geedka ka dhaqaajiyo geedka hoostiisa wax bal wuxuun hadday dibe tahay iyo hadday guda tahay bal wuxuun qabsada wasaaradda waxbarashadu ciddii wax qabsata ayuun bay had iyo jeer ku dhiirataa inay markaa bal wax baahiyaha ka dhiman inay xun ka dhamaystirto waayo baahiyihii way farabateen iskuulladu way noo fara badan yihiin ubadku way noo fara badan yahay maasha Allah marka waxa weeye dadaalku marka dhinac walba waa imanaya waa kaasoo fasalkaas la hirgeliyay barkadii biyaha loo sameeyay deegaanka ayaa qabsaday markii ay yiraahdeen wuu dhamaaday waxaanu doonnay inaanu niraahno warbal oo idinkii waqti hadalku idinka dhacay nimankii deegaankii oo idinkii geliyay hawsha dee haddaba waayay bal kuraastii ugu horeysay wixii loo helayay waa noo helay waxaa jira iskuullada markaanu marayno gaar ahaan deegaanada miyiga ah iskuul markaanu nimaadno xoogaa niyad jab baanu ka qaadnaa iskuulla waanu ku faraxnaa iskuulkan wuxuu ka mid yahay iskuullada aanu ku faraxnay aad iyo aad ugu faraxnay waayo iskuul 3 fasal dhistay oo barkadii dhistay deegaan dhistay waxa weeye Casuuri waa ka kow waa barkadii waa 3 fasal waxa weeye wali maanu arag intaanu maraynay deegaan inta qabsaday iyo masaajidkii iyo malcaamadii inta deegaan qabsaday waa noo kow diiwaankaanu gelinay aad iyo aad baanu idinka mahad celinaynaa haddaad deegaanka tihiin haddaad cuqaasha tihiin haddaad xildhibaanadii tihiin haddaad tihiin qurba joogtii oo iminka maanta uu nagala joogo Siciid Jaamac Shoodhe Xandulle iskuulka kan wax la yiraahdaa Casuuro wax weeye Axmed Jaamac Professor Axmed Jaamac Xandulle wuxuu ahaa macallinkii aniga uulada ay bilaabay markii uu qorayay imtixaankayga qaaday waxa weeye taa aan ku aflaxay tiirka waxa ay dhigay aasaaska waxa ay dhigay Xandulle ay dhigay Xandulle maanta cid kasta oo dhigaysanaysa codka Xandulle maqlaysa waxa weeye dad badan oo intellectuals oo wada educated ah oo caalamka ku kala filqan ayaa laga yaabaa inay dhigaystaan waxa weeye markii dambena macallinimadii markii uu wuxuu Haile Selassie University ayuu ka soo graduate garoobay
markii dambe jaamacadda la foole ayuu ka dhigay cultural attache ayuu Mareykan ka noqday waxaan doonayaa cid kasta oo codkayga dhageysanaysa oo xandulle garanaysa maanta iskuulka Casuura inuu maxay hayto isagoo qadarinaya ilaahayna waxaynu uga baryaynaa in ilaahay naxariistii janno ka waraabiyo Axmed Jaamac Professor Axmed Jaamac Xandulle cid kasta oo Axmed Jaamac garanaysa Xandulle iskuulka loogu magac daray waxaan doonayaa inay qayb ka soo qaataan soo xusaan qodobkaas waa qodobka ka wasaaradahan waxa idinka dhiman waanu garanaynaa ducana daba dhiga in ilaahay waxa idinka dhiman ilaahay noo soo fududeeyo wasaaraduna waa ka go'an tahay waxa weeye way ka go'an tahay deegaanka wax qabsada waxa ka dhiman inay u soo dhameystirto ilaahay waxaynu ka baryaynaa inay noo hirgasho wasaaraddu meesha fidiyaysa ee ardadu ay badan ay had iyo jeer korodho wasaaraddu waxay ku haysaa microscopic weyn bay ku haysaa waxa weeye dhageysi weyn bay u leedahay had iyo jeer meelaha iskuulada kordhaya waxa weeye waana u kordhisaa macallimiintana way u qortaa waxaan idinkula dardaarmayaa inay la yiraahdo ardadii meeshii qaadi weyday 250 qof reer oo min laba kaliya laga soo qoray bal hadda malaya intay yihiin haddii qof laga soo qoro bal haddii laba laga soo qoro qaar baa 3 laga soo qoraya demiyaani markaa meeshu aanay waddanku miyaanu buuxsamayn idinka wax la idinka rabaa sidii ardadu idinku badan lahayd in magacaydeen falowgeed qabataan anugula soo degdegayna inaad tiraadaan ardadii way yar kala reeri way kala guureeno abaar iyo maxay hayto haddii allaba ku roon yahay waligii naga ilaaliya waa ardadii waa korodhay mooyaane way yaraatay annaga wax weyn bay noo dhintaa wax weeye waxyaabahan ku dadaalayno meelahan oo kale ayay tahay fiidinku waliba war saddex wax weeye waxa qabsateen wax waa la idinku daraya haddaba dareenka laftiisa duco uun hadiye jeer nagu soo miisa aanu ilaahay noo sakhiro intaanu annaguna uga hawlgelayno marka waxa weeye aad iyo aad baan idinka mahad celinayaa iminkana xadhigii baynu ka jaraynaa wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu dee haddii aan wax yar dhaafeenaya xasuusiya tahay kormeeraha qaybta waxbarashada oo dhan cuqaasha waayeelka guddida waxbarashada ee Casuuro ilaa Xadhaadh ilaa Hurgufato macallimiinta bulshada kale assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu waxaan wadaa hadeer waxaan anigu soo sheegoba waa yar tahay iskuulka warbixintiisa iyo hawshiisa waa la dhameeyay bilowgiisa ilaa asaaskiisa ilaa maanta halka uu joogo muhiimaduna waxay ahayd warbixintiisa in la helo marka iskuulka hadda wuxuu u baahan yahay dad la keeno dhismihiisii dhammaa barkada u dhamaatay waxa koow u baahan yahay in dad yimaado waxa kale uu u baahan yahay macallimiinta sidii maxamuud dirir sheegay hal macallin baa mushahar ka qaata in ama 3 ama 2 ugu yaraan 2 loo ku daro oo iskuul inta baaxadiisu la eg tahay oo hal macallin mushahar ka qaato oo wasaaradda aanay wax ku darsan xogaa waadag yahay insha Allah waxaan rajaynayaa hawshaasuna inay dhamaato wasaaraduna wixii waajibaadkeeda ah ay ka qaadato macallimiintana labada macallin horta mushahar ay u qorto haddaanay 3 nooga dhigayn kan qaata isagu maamulu mushahar waa mushahari baa lagu yidhi laakiin macallimiinta kale ma leh dadkuna wuxuu ku fiican yahay guddida waxbarashada Casuuro iyo wasaaradda waxbarashaduna waxa fiican inay xiriir yeeshaan oo toos u xiriiraan oo macallimiinta iyo guddidu
ayna joogto ahaadaan xidhiidhkoodu si ay u najaxdo ardayda wixii maqnaada wixii meel aada wixii xanuunsada guddida deegaanka iyo macallimiintu waa inay xidhiidh yeeshaan guddida deegaanka ee waxbarashada iyo wasaaraddu waa inay xidhiidh yeeshaan intaas waxa ku hagaagaya waxbarashadii casuuro ama dugsiga la yidhaahdo professor axmed jaamac xandulle waayo wax badan buu soo saari karaa haddii hawshaasu dhacdo in la xidhiidho marka iyada waxaan kaga tegayaa warka oo dhanba waxaan kaga tegayaa guddoomiye iyo wasaarad macallimiinta kow ha noo ahaato wixii waxqabada macallimiinta mushaharka siinaysaan kow ha noo ahaato talabaadna ha noo ahaato wixii idinku leeyahay idinku dhiman idinba waa aragtaan waxa idinka dhimane marka intaasaan ku dhaafayaa asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu waanu goobtan isugu nimi waxaanu isa su'aalay oo hindisaana uu siciid lahaa halkaa inaynu carruurteenna kurtaa tagta kurtaasoo ma aragtaa waa iskuulka kale ka dhisan yahay carruurta kurtaa tagta anigana gurigaygu haddeer nusmayl buu xagga inaga jira carruur buu xagga ka jira carruurta kurtaa tagta inaynu ka kaaftoonno oo barteennaa aaminno oo aynu iskuul ka dhisanno baanu isweydiinay labadayada qure baanu nahay waanu qarsanaynay sida runta ah waxaanu ka qarsanaynay iskuulkaa sare inuu qalaangalna gasho oo la yidhaahdo carruurii baa la kala goynaya baanu ka fikirayn qarsoodi baanu markaa ku bilownay dadka markaa jiidahana oo casuuro iyo hurgfata u badan yihiin xadhaadh mar dambay nagu soo darantee ayaanu qaybo ka badan weydiinay war maxay idinla tahay waa nalala aqbalay sidaa baanu markaa ku dhagax dhignay oo aanu iskuulka ku samaysnay tacabka iskuulka 3 socod way u kala badan tahay lambar 1 waxa ah beesha casuuro lambar 1 waxa ah beesha casuuro lambar 2na waxa ah beesha hurgufto lambar 3na waxa beesha xalaali sidaa baanu shaqada ku qabanay aan ilaahay wuxuu markaa beeshii baanu gaadhsiinay waayeeladii baanu gaadhsiinay dabadeedna waa bilownay dee fasalkaa yar baa dhismay carruurtiina waa la keenay dadka reer miyiga ah tacliinta haddaan loo jeexin tacliinta xoolaha yaqaanina tacliinta kale waa loo jeexaa waanu u jeexnay sidii baanu markaa isku wada afgarannay sidaasaa iskuulkaasu ku dhismay kuna taagan yahay waxa qura aanu dhowr joor halka isugu nimi wasaaradda in dee markaanu annaku awooddayadii aanu muujinno oo iskuulkii iyo masaajidkii isku rakiban yihiin oo aanu intaa annagu leenahay waxaanu had iyo jeer dee wasaaradda ku boorinnaa wixii dowladnimo ina lagu kordhiyo wixii dowladnimo ina lagu kordhiyo ayaantii u dambaysay ee aanu markaa halka ka wada hadalnay oo kan aanu markaa hawshiisa aanu isla soo qaadnay oo iyaga qudhooda ay nasii dhiireen oo yidhaahdeen kordhiya waanu aqbalnay waxa markaa maalintaa hawshu taagnayd oo nalaga ballan qaaday markaanu galaaskan dhammayno macallimiinta in naloo kordhiyo oo macallin qura ayaa wax dhiga haddeerna mid baa weli aan aada u fidhgaroobin baa lagu soo daray 2 macallin inna lagu kordhiyo si had iyo jeer macallin fasax u noqdo ilaa meeshu waa miyi 2na mar walba wax u dhigaan in macallimiinta 3na looga dhigo kelmaddaas codsi bay ahayd waxaa kaloo codsi ahayd ileen kuwa yaganu waa ku meel gaadhi iskuulkii weynaana markaa inay dowladdu ku tala gasho kii weynaa ee balladhnaadee sidaasaanu isweydiintayadu ay ahayd sidaanu ku soo asaasnayna waa sidaa ilaahayna waa nala qabtay
caruurtu dee galaasyaday marayaan waa laydiin sheegay hadda meeshuu dooggan dambe hadduu helay abaar baa looga kala guuray dabadeedna caruurtu sidaasay fasax ku tahay oo fasaxyada magaalada iyo fasaxyada miyiga way kala duwanaadaan caruurtan wax la fasaxaa waktiga abaarta ah ee reeru meesha ka guuraan doog oo dhanna way dhiganayaan oo magaalada lama jaadaha noocaasaanu arrinta ku ognahay noocaanu ku talagalnayna waa noocaa haddii maanta ilaahay annagoo kii kalena dhammaynayno isugu keenay oo iyadoo dooga isugu keenay waxaanu codsiga iyagu yahay wixii dowladi leedahay ee naga dhiman in naloo qabto wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu